الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. muxaadaradii aynu soo gallay wiiggii hore ayaa in sha allahu tacaala qaybteedii labaad aynu isku dayeynaa. kollay boosku waa cidhiidhi, marka in sha allah laysu sabro, inta laysu durki karayo ha laysu durko. mawduucanna sidiisa waa mawduuc ballaadhan, dadna ay ku fitnoobeen, shubahaad badanna kollay ay jiraan. marka waa mawduuc mutaysanaya ama u baahan in kollay xalqado badan laga galo. bal hadda caawa waxaynu joognaa xalqaddii labaad. ugu horrayn waxaynu tilmaamaynaa tambiih yar oo ku saabsan xisaabta markaynu ka hadlaynay xagga musaadafada aynu radinaynay ama bayjaaniska. waxaynu tilmaannay mawduuc ku saabsan irbado nambara leh oo 10 irbadood ah. waxaynu doonaynaa inaynu tilmaanno in yacni arrinka ku saabsan arrinkaasi musaadafa keliyuu ku dhacay, bimacnaa ku beegan iyo bayjaanis keliyuu ku dhacay oo makhluuqaadkani ku abuurmeen inay tahay mid mustaxiila oo aan dhici karin baynu doonayna inaan ku tilmaanno. marka caalamkan yacni weyn ee waxyaalaha badan ka kooban musaadafo kuma dhici karo. ruux kastoo caqlina waa garan karaa inaanu ku iman karin cala sabiili sudfa. tusaalayaal kale oo aynu markaa tilmaannayna waa jiraan. haddaynu mid ku darno, masalan haddii aad arki lahayd guri weyn oo aad u dhisan oo fillo weyn oo la dhisay dabaqyo ka kooban amaba sideeda u ballaadhan oo aan dabaqyo ka koobnayn, geedh lagu wareejiyey, aad loo hagaajiyey, aad loo dhalaaliyey, aad loo qurxiyey. haddii cidi ay kugu odhan lahayd gurigan cidima dhisin, habeenuunbaa inta la toosay subxii waxa la arkay iyadoo gurigaasi taagan yahay, wax ka dhimanna aanu jirin. habeennimadiina mid jiray ma ahayn, cid dhistayna ma jirtee mar keliyuunbuu gurigu soo booday. qof caqli leh ma rumaysan karaa? ma dhici karto inu rumaysto. waayo waxaa la garanayaa wax kasta oo markaas soo darriyey sabab buu ku yimi. cid keentay waa inay jirtaa, cid sababtay waa inay jirtaa. ma dhici karto isagu markaa inuu iska mid jira iska noqdo. marka mawduuca irbadaha aynu tilmaannay waxaan baraarujinayaa, carabku wuxuu inaga dhacay arrinka ku saabsan yacni 10ka irbadood, yacni hal jaanis baa noqonaya inay ku beeganto ka markaa koowaad inuu qaado. inaan indhala baa la keenay, waxa la yidhi 10ka irbadood waxaad qaaddaa irbadda uu kow ku qoran tahay. irbadahana nambarraa ku qoran. irbadihii ma arko waana isku dhafan yihiin, waa isdhex gashan yihiin. 10ka irbadood marba mid buu qaadi karaa. markay 9 qalad noqdaan, mid baa sawaabkii noqonaya. hal mar bay ugu beegmi kartaa ka saxan. inta kale ka soo hadhay, 10ka ka soo hadhay waa 9 bay noqonaysaaye waxay ku beegmaysaa qaladka. mararka ta labaad iyo ta saddexaad iyo ta afraad lagu darayana waa saas si la-eg. mar walba hal jaanis oo sax ah baa ku beegmi kara, inta kalena waxay noqonaysaa qalad. 1 iyo 2 marka la qaadayana labadaba waa la isku qaadayaa. ta koowaad baa la qaadaya, ta labaad baa haddana la qaadaya. marka waxay noqonaysaa 10 fi 10, 100 bay noqonaysaa. yacni 100 jaanis baa ka suuragala oo hal mid ka sax yahay, 99 kalena qalad yihiin. 1kiina waa saas leeg. ta saddexaad waa saas leeg.
mar walbana waxaa ku kordhaya saynu soo sheegnay hal siiro baa ku kordhaya marka mar walba tiradu intay noqoto hal mid baa ka dhinmaya oo midkaasi uu sax u dhici karo inta kale waxay u dhacaysaa sida qaldan bay u dhacaysaa taasi waa tanbiihaas weeye waxaynu tilmaamaynaa dadka aaminsan inay ilaahay dafirayaan amaba ay ka shakisan yihiin amaba ay leeyihiin ma jiro ama makhluuqaadkan cidima abuurin ama intuu abuuray ayuu faraha ka qaado iskaga tegey amaba le markaa waxa weeye waa ka shakisannahay dhammaan maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya gaalnimada kulligood waa gaalo diintii waa ka baxeen bale wax diin ay aaminsan yihiin mama jirto diimahoo dhan bay ka kufriyeen asalkoodii hadduu islaam ahaana kufrigooda waxa la yahay kufru ridda waa gaalnimo diinka noqosho ah ruuxa gaalkee diinta ka noqday ee ka gaaloobay oo isagoo muslim ahaa dib u gaaloobay waa ka xun yahay gaalka asliga ah yacni kufriga waxaa loo qaybiyaa kufr ridda wa kufrun asli gaalnimo asliya waatuu ruuxu markii horeba asaalatan ugu sugnaayoo islaamnimo aanu soo marin waxaa la yidhaahdaa kufri asli yahuudiga yahuudinimada ku barbaaray kufrigiisu waa asli gaalnimadaasaa u asal ahayd kiristaanka kiristaannimo ku barbaaray ee sidaa ku dhashay yacni markaa gaalo ay dhaleen markii horeba wuxuu ahaa markaa mid gaalnimada calaa sabiili tabac ay ugu sugnayd fitrada inay ku abuuran tahay diintu waa shay kale laakiin xukmi tabaciyaa jira attaabicu taabic waa qaacido marka axkaamu dunyaha marka laga hadlaayo yacni tabac ahaan baa kufriga uu waalidadii u raacaya marka ruuxii gaalnimadu ay u asal ahayd kufrigiisa waxa yahay kufri asli ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama shuuci ha noqdo ama buudi ha noqdo ama hindoos ha noqdo ama siikh ha noqdo siinga ha noqdo ama waxyaalo kale ha noqdo ruuxii asalkiisu islaamnimo ay ahayd hadduu gaaloobo diintii ka noqdo kufrigiisa waxa la yahay kufru ridda waa gaalnimo diinka noqosho ah gaalnimada diinka noqoshadiina waa ka xun tahay gaalnimada asliga ah hadduu wax wanaaga hore ula yimi camalkiisu waa ka buraya waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira ilaahay waxau ihi ku kasta oo ka laabta diintiisa oo dhinto isagoo gaal ah camalkiisu waa buraya ifyo aakhiraba camalkiisu waa buraya waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ku kasta oo ka gaalooba iimaanka camalkiisu waa buray waxaanu ka mid yahay kuwa khasaaray buu ka mid yahay guuldarraystay ayuu ka mid yahay marka ruuxa yahuudiga ama ruuxa nasraaniga ah ee sidaa markii horeba ku barbaaray waxa ka xun kii muslimka ahaan jiray ee gaaloobay alla koodkan aynu sheegaynaana waa dar gaaloobay oo diintii islaamka ka baxay qaarkood aan diinta islaamka soo marin oo iyagoo gaalnimo ku barbaarayna waa jiraan amaba mulxidiina ay dhaleen marka arrinka noocaasi waa arrin aad iyo aad u khatar ah waxaanu ku sugan yahay baadi tii ugu weynayd buu ku sugan yahay baadi tii ugu weynayd ayuu ku sugan yahay mulxidiinta marka la qaybinaayo kuwa gaaloobay ee dafiraaya ilaahay amaba ka shakisan qaarkood waa qaar la taagan dafiraad cad qaarkoodna waa qaar odhanaya anigu waa shakisanahay oo ma garanaayo miyuu jiraa mise ma jiro laakiin labada noocba waxaynu sheegnay in gaalnimadu ka dhaxayso aakhirana waxay la kulmayaan isku meel bay gelayaan waa inay jahannamo galaan labaduba hadday saa ku dhintaan naartana ay ku waaraan abad alaabaad ka odhanaya haddaba waxa weeye anigu waa shakisanahay waata laga cabbiro mulxid salbi malaaxidada waxaa loo qaybiyaa mulxid iijaabi iyo mulxid salbi
mid ilxaadkii si cad u sugayo oo isagu markaa inkaar cad la taagan oo ka iijaabiga lagu magacaabo ah, iyo mulxid salbi waa ka la yidhaahdo almulxid laa adri, waa mulxid odhanaayo anigu garan maayo. haddaba kan markaa la yidhaahdo almulxidu laa adri oo isagu taagan anigu garan maayo waa shakisnay, inuu doodaa isaga uma suuragal aha, waayo wuxuu ictiraafayaa qiranayaa inuu waxa weeye isagu shakisan yahay. mar hadduu shakisan yahayna dee cilmi uu ku doodo ma hayo, waayo shakigu waa jahli. ruux hadduu ruux kale uu yidhahdo niyow waxa aad haysato waxaan ka shakisnay anigu inaan leeyahay, dacwo la aqbali kara ma tahay oo la dhegaysanayo oo la odhanayo ninkan ka garbax? jawaabtu waa maya, jawaab ma istaahilo. marba hadduu leeyahay waa shakisanahay oo aanu wixii si cad u sheeganaynin, isagu inuu doodaa ma suuragal ahaa. dacwadu waa inay tahay markaa waxa weeye mid mulzime ah waa inay tahay. laakiin hadday noqoto waa ka shakisnahay inaan anigu leeyahay iyo in kale, waa dacwa hayru masmuuca, dacwo la dhegaysta maaha. waxaana la yidhahdaa kafaa bishaki jahlan, shakiga aqoon darro qofka ugu filan. mar hadduu leeyahay sidaa inay tahay iyo inaynay ahayn anigu kala garan maayo, waxa weeye adigu dee jaahil baad ka tahay oo cilmi ma sheeganaysid, oo sidaas si khilaafsan adigu markaa waxa weye hadda cilmi kumaad sheegan. ruux jaahilana lalama doodo, waa arrin caqlanba la garanaayo. ruux caalima hadduu ruux u yimaado oo uu yidhaahdo anigu markaa waxaad sheegaysaa inay sax tahay waa ka shakisnahay, waana kula doodayaa, dee maxaad ila dooddaa? yani xujo aad igula doodo maada haystaa. aqoon haddaanad lahayn jaahil caalim lama doodo. shaakigu shakisani waa jaahil. mar hadduu jaahil yahay, xaqiisu wuxuu yahay inuu cid weydiiyo taqliidoo kale u furan, inuu cid iska qallito oo markaa wixii loo sheego dee uma aqbala ama markaysa markaa uu qaadan waayo. laakiin waa doodayaa, cilmaa lagu doodaa. intiq bicilmin aw iskut bixilmin, waxaa la yidhaha ama cilmi ku hadal ama dulqaad ku aamus. haa antum haaulaa'i xaajajtum fima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm. maxaa ugu doodaysaan waxaydaan cilmi u lahayn? xaqu ljaahil an yaskut, inuu caalim la asraartamo ama cid markaa cilmi sheeganaysa inuu la asraartama uma furna. marba hadduu markaa qiranayo u leeyahay anugu garan maayo, ya dee jahli baad qiratee jahligaaga ku aamus. laakiin cid cilmi le baan la doodayaa, caqli iyo sharci toonna ku tusi maayo. ka warran iminka hadduu markaa nin u tago dhakhtarrada ikhsaa'iyiinta ah ee takhasusaadka leh oo isagoo jaahila oo yidhahdo takhasuskii baan kaala doodaya, takhasuskaagii waxaad adigu takhasuska u lahayd baan kugu asraarayaa, ya warka noocaasi miyuu furan yihi? uma furna. waa dhacdaa dadku marka waxa weeye iyagoo aan cilmi lahayn inay haddana waxayna cilmi u lahayn iska galaan. marka qadiyadda ku saabsan yacni arrinka dood ku saabsan ruuxa shakiga qiranaya ama markaa waxa weye laa adri leh, almulxidu laa adri, ictiraad yacni ma leh, inuu marka asraartamo doodana ma leh. laa cilma walaa adab, yacni cilmina ma leh, biictiraafihi aadaab iyo akhlaaq wanaagsanna ma leh. waxyaalahaynu sheegnay waxaa ka mida masalada ku saabsan jaadibiyada ama cufisjiidadka waxaa eray bixinta soomaaliga loogu erey bixiyey. kownkan ama jiritaankan waxaa ka dhaxeeya wax jaadibiya la yahay, quwat ljaadibiya, awoodda cufisjiidadka ku saabsan baa ku sugan. waxyaalahaynu sheegnay waxaa ka mida inaan awooddaasi wax la arkayo ahayn, aahaarteedaa la arkaa baynu leeyihi. waxyaalaha qaarkood
laakiin iyada lafteeda mid la arkaya maaha. dadka qaar waxay isku qaldayaan marka ashyaada qaarkood cufisjiidadkaas uu samaynayaan in marka waxa weeye xawaaraha ama surcada ama waxaasoo kale la xisaabin karo. dee taasi lafteedii maaha, waa aahaartii. shayga laftiisii aahaartiisuna waa kala duwantahy. waxyaalaha aadka u cajiibkaa waxaa ka mid a haddii waxa weeye cufisjiidadku intaa ka badan lahaa makhluuqaadku waa isku ururi lahaayeen, waxaanay noqon lahaayeen markaa gebigooduba inay isku wada dhegaan oo cirka iyo dhulka iyo wuxuba ay iswada qabsadaan oo wax nolol yahay ayn ka suuro gasheen. inta allah ka dhigay hadduu markaa laga badin lahaa nololay kama suuro gasheen. haddii laga yarayn lahaana caalamku waa kala tegi lahaa. haddii aan cufisjiidadkani jiri lahayn amaba uu aad u yaran lahaa xataa dadka markaa dhulka ku sugan waxa weeye waxay noqon lahaayeen inay markaa yani ayna ku sugnaan kareen. caalamkuna iska kala baaho iska kala tago. miqyaaska laga dhigay waxa weeye waa sunci mutqan, waa samayn aad iyo aad loo sugay, xikmad la yaab lihi ay ku jirto. waxay caddaynaysaa khaaliq sameeyey inuu jiro oo awood badan oo cilmi badan oo xikmad badan oo uu sidaa ugu tala galay. taasay caddaynaysaa. waxyaalaha u daliilkaa bay ka mid tahay yacni khaaliqa iyo qudradiisa iyo cilmigiisa iyo xikmadiisa u daliilkaa ayay ka mid tahay. tusaalayaasha aynu soo qaadannay waxaa ka mid a caqliga. caqliga lama arkaynu nihi waa arrin qarsoon. waxa dadka qaarkood ay moodayaan aahaarta ka dhalanaysa ama markaa waxa weeye tasarufaadka laga garanaayo caqliga in khalal ku yimi oo raadad ka dhalanaya ah bay waxay ku qaldayeen caqliga laftiisa. war shayga laftiisa iyo waxa isaga ka dhashaa waa kala laba. in shayga laftiisa la arki waayo laakiin aahaarta ka dhalanaysa la arkaa ma aha laftiisii la arkay. iminka khaaliqa makhluuqaadka abuuray ma aragno allah, laakiin waxaynu aragnaa aahaara khalqi. yacni markaa daatadiisa iyo aahaartu waa kala duwan yihiin. raadadka ka dhashay abuurista oo allah wax abuuray waxay daliil u tahay wujuudka ilaahay iyo jiritaanka ilaahay. sidaas aawadeed baa makhluuqaadku daliil u yihiin inuu allah jiro. wa fii kulli shayin lahu aayatu tadullu cala annahu waaxidu. marka sida khaaliqa aahaartii abuurkiisa ka dhashay ay calaamad u tahay jiritaanka ilaahay jiro, ayaa aahaarta caqliga ka dhalanaysaana ay daliil u tahay caqligu inuu jiro. laakiin maaha caqliga laftiisii in la arkay maaha ama xawaasta mid lagu haleelay maaha. markaa shayga laftiisa iyo calaamaadka isaga ka baxsan ama aahaarta ka dhalanaysa waa kala laba. makhluuqaadka o dhammi waa calaamaad ilahay ku tusinaya, waa dalaa'il, waana calaamaad, waa aahaaru khalqi illaah. masalada noocaasna waa ka soo hadallay. marka taasna waxaa loo baahan yahay in lagu baraarugsanaada loo baahan yahay. waxaynu sheegnay dariiqyada cilmiga wax lagu aqoonsado waxaa ka mida alxisu, xawaasta iyo dareemayaasha. waxaa ka mida alcaqlu, waxaa ka mida alkhabaru asaadiq. saddex nooc ayaynu sheegnay. xawaasta aqoon waa lagu kasbadaa oo waxbaa lagu ogaadaa iyo dareemayaasha. caqligana aqoon waa lagu kasbadaa. shayga saddexaad oo ah khabaru saadiq, war dhab ah oo cid aqoon u leh sheegtay yadana aqoon waa lagu kasbadaa. marka arrinkaa ku saabsan khabaru saadiq in aqoon lagu kasbado nowcan maa waxbaynu ka tilmaamaynaa in sha allahu tacaala. waxaanse ku horraynaya nimanka alla koodkee gaaloobay mid ka mida ayaa wuxuu yidhi mararka qaar waxay ku weydiinayaan yaa ku abuuray.
markaasuu ka jawaabo wuxuu yidhi waxa i abuuray aabbaha iyo hooyaday. wuxuu ku leeyahay aabbaha iyo hooyaday baa i abuuray, yagana laba kala abuuray, oo aabbana laba kala abuuray, hooyana laba kala abuuray. waa cajaa'ib. awoodda abuuritaanka aabbaha iyo hooyadaa miyay markaa awoodaan oo inay wax abuuraan miyay kari karaan? caqli iyo sharci iyo fitra midna waafiqi mayso warkaas. sababtu waxay tahay aabbe iyo hooyo wuxuu qirayaa inay iyaga laftooda la abuuru qirayaa, ay soo darriyeen, ay labaduba makhluuq yihiin, yagaan jirin waxaan jirin ahaa kadib in la abuuray. marka wuxuu qirtay inay makhluuq yihiin. waxay isweydiin lahay hadday makhluuq yihiin, makhluuq khaaliq ma noqon karaa? ma dhici karto makhluuq inuu khaaliq noqdo. dhowr geesood baynu taa iska taagaynaa. xujooyin caqliyana waa ku burinaynaa warkaas, yada iska waadix tahay oo dadku ay iska garanayaan baatilnimadeeda ayaynu haddana aynu sii jilcinaynaa. aabbe iyo hooyo abuurista ma kari karaan? ma garanayaan waxaad adigu ka samaysan tahay oo jidhkaaga wuxuu ka samaysan yahay ma garanayaan? ma garan karaa inta noocee marka aad isaga timaaddo? ma garanayaan mid walba kambiyada kaaga jirta, qadarka kaaga sugan ma garanayaan? tiro ahaan brotiin inta kugu sugan ma garanayaan? ya calcium inta kugu jirta ma garanayaan? carbon inta kugu sugan ma og yihiin? oxygen inta kugu sugan ma og yihiin? nitrogen inta kugu sugan ma og yihiin? yacni fosfor inta kugu sugan ma og yihiin? jidhkaagu wuxuu ka kooban yahay inta lafoodee markaa xubnoodee uu leeyahay jidhkaagu ma garanayaan? inta xidida jidhkaaga ku yaalla ma og yihiin? inta neerfayaale jidhkaaga mara ma garanayaan? siday marka waxa weeye xubnahaaga ay u shaqeeyaan ma garanayaan? hadday dheefshiidka tahay, hadday keliyaha tahay, hadday wadnaha tahay, hadday maskaxda tahay, siday u samaysayin ma garanayaan? siday isugu xidhayin ma garanayaan? hadday intaa midnaba aynay garanayn, siday kuu abuureen? waxaad ka soo qaaddaa masalan hadduu inan yidhaahdo guri weyn oo dabaqa oo intaasoo dabaq ka kooban oo si cajiiba loo dhisay ayuu masalan wuxuu yidhi aabbahay baa dhisay oo ka injineer ahaa. markaasaa waxaa lagu yidhi masalan bal aabbahaa noo sharxo siduu guriga u dhisay, alaabta gashay iyo noocyada gashay mid walba intay ka koobnaayeen noo sheego. intee sibir gashay, intee biraha markaa galay, imise birood baa la geliyey, raqamaday kala lahaayeen waa imisa, nambaradoodu maxay ahaayeen, intee shay gashay, yacani siduu guriga u sameeyey muxuu ka kooban yahay gurigu. markii ashyaadaasoo kale la weydiiyey wuu garan waayo. waa calaa sabiili misaal. waxaaba dhici karta inaanu garanayn odayga uu leeyahay guriga waa dhisay oo isaga injineer ka ahaa, alaabooyinka qaarkood oo guriga daruuri u ah marka dabaq la dhisaayo inay galaanba inaanu aqoon. macquul miyay tahay guriga isagaa dhisay? ma laga sidiqi lahaa? war ma dhici kartaa in laga sidiqo oo laga rumaysto? ma suuragala. taasi waxay xasuusinaysaa qiso waa hore dhacday oo culammada qaarkood ay soo naqliyeen. qisadaasi waxay tahay nin mulxida ayaa wuxuu la doodayey nin muslimuu la doodayey. kaa gaaloobay ee mulxidkee ilaahay dafiraya ayaa wuxuu yidhi aniguba waxbaan abuuraa. oo maxaad abuurtaa baa la yidhi. wuxuu yidhi wax nool baan abuuraa buu yidhi, aan samayn karaa. haye natus baa la yidhi. wuxuu soo qaaday cad buu soo qaaday, waa cad qaydhin. geed guntii buu u qoday. geedka guntiisa markuu u qoday ayuu godkii ku riday, ciidduu ku rogay. wuxuu yidhi 3 maalmood dabadeed haynoo haato. 3 maalmood dabadeed baa la yimi, godkii buu fagay. waxaa loo tegey hilibkiioo dee dirxigu no'daa gurayo. meeshii dirxi baa ka buuxa. 3 habeen iyo 3 maalmood buu ku jiray oo ku daboollaa meesha.
oo ku huuray markaasuu makhluuqaadkan abuuray oo kuwa waxaasoo noola baan abuuray waxa lagu yidhi oda abuuray haa anaa abuuray waxa lagu yidhi tiradoodu waa imise haddaad abuurtay dee miyuu garanaya tiradooda markaasuu garan maayo markaasuu oo makhluuqaad baad abuurtay haddana garan maysid tiradooda waayahay imisaa laba imisaa dhadiga markaasuu garan maayo wuxuuna sheeganayaa inuu abuuray haddana ma garanaayo tiradooda garanna maayo lab iyo dhadig waxay kala yihiin xataa wuxuu yidhi kooda lab iyo kooda dhadig kala garan maayo haddaa saad u abuurtay waxyaalaha noocaas ah waxaa la yidhaha mukhaalata waa wax la doonaayo dadka in lagu qaldo xaqiiqana aan lahayn iminka inan kale aabbaha iyo hooyada baa abuuray aabbihii hooyadii haddaynay garanaynba wax alle wuxuu jidhkiisu ka kooban yahay say u abuureen sida itqaanka ay u samaysan yahay isugu xidhan yahay ya haddaynay garanaynba say u abuureen wax dhici kara maa masalan wuxuu yidhi iyagana mid walba waxa abuuray laba kale wuxuu u jeedaa way dhaleen bal markaad tidhaahdo laba walba mid walba waxaa sii abuuray laba kala sii abuuray alinsaanu alawal labadii ugu horreeyey ama kii ugu horreeyey yaa abuuray faman khalaqa alinsaana alawal aadamigii ugu horreeyey ama markaa waxa weeye ruuxii ugu horreeyey yaa abuuray ama labadii ugu horreeyey yaa abuuray lagama maarmaan waxa ah in la qiro khaaliq aan makhluuq ahayn inuu abuuray ta kale makhluuqa iyo khaaliqu waa kala duwan yihiin oo makhluuq ma noqon karo khaaliq ma noqon karo waa jamci bayni naqiidayn laba shay oo isku liddi ah oo naqiidaan ah annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan waxay ka mid tahay qawaacidda loojigay ka mid tahay mantiqa laba naqiid ma kulmaan mana wada maqnaadaan labada naqiid waa maxay waa sida markaa wujuud iyo laa wujuud waa sida khaaliq iyo laa khaaliq waa sida makhluuq iyo laa makhluuq bicibaara ukhraa waa sida wujuud iyo cadam shay mar keliya inuu noqdo mawjuud macduum ah waa jiraa mana jiro mid walibana waa cala sabiil xaqiiqa wax dhici kara maaha ima an yakuuna mawjuudan wa ima an yakuuna macduuman ama waa inuu noqdaa mid jira ama waa inuu noqdaa midaan jirin laakiin xilli keliyuu yahay mawjuud macduum ah waa jiraa mana jiro waa naqiidaan qaacidada mantiqii waxay sheegaysaa annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan lojigu siduu tilmaamaya asaas labada naqiid ma kulmi karaan oo shaygu ma noqon karo macduum aan jirin haddana jira isla markaa shay keli ah xilli keli ah kamana wada bixi karooo labada kama wada maqnaan karo oo ma noqon karo midaan macduumna ahayn mawjuudna ahayn ee ilaaba ilaa labada mid waa inay u sugan tahay midna ka maqan tahay lama odhan karo macduumna ma aha mawjuudna ma aha shaygani wax jira ma aha midaan jirinna ma aha waa waxaan macquul ahayn lidkeeduna waa saasi leeg waa inuu labada mid ahaan yahay oo mawjuud yahay ama macduum yahay labadii kama wada maqnaan karaan annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan tusaalaha ina hor yaalla khaaliq iyo makhluuq mar keliyuu makhluuq yahay haddana khaaliq yahay waxay ka dhigan tahay labadii naqiid ayaa kulmay mar keli ah oo waa khaaliq waa makhluuq khaaliq ah baa macnuhu dhacay mana dhici karto makhluuq inuu khaaliq noqdo waa yahay axkaamta caqliga marka la sheegaayo caqligu xukumadiisu waa saddex inuu shaygu yahay markaa shay waajib ah wujuub iyo inuu yahay shay mumkin ah oo suuragal ah iyo inuu yahay shay mustaxiil aan dhici karin oo masalan ashyaadu waxay u qaybsamaan wax caqligu garanaayo ilaaba ilaa inay jiraan inaynay jirinna ayna dhici karin xatman caqligu wuxuu garanayaa inay jiraan inay jiri waayaanna waa mustaxiil waa waxaan dhici karin noocaa waxaa la yidhaha waajib ulwujuud jiritaankiisu waa waajibo waa laazim
ma dhici karto si kale shaygaasi cadam ma soo mari karo baaba'na ma haleeli karo nooc labaad waxaa la yidhaahdaa mumtanicu lwujuuda waa waxaan dhici karinoo jiritaankiisu mustaxiil ba yahay ma dhici karto kaasna waxaa laazim ah ilaaba ilaa inuu macduum yahay oo wax jiraya marnaba maaha nooc labada ka dhexeeyaa jira nooc maxaynu idhi waxaa xatmi ah oo laazim ah caqligu siduu garanaayo ilaaba ilaa inuu jiro inaanu jirinna ayna dhici karin shayna waxaa xatmi ah laazim ah inaanu jirin inuu jiraana ma dhici karto maxaa udhexeeya waxaa udhexeeya mid sida iyo sida mid walba aqbalaya wa qaabil lilwujuud wa qaabil lilcadami ayda wuxuu aqbalayaa inuu jiro wuxuuna aqbalayaa inaanu jirin hadda maaragta si kasta hadduu u fekero caqligu shay afraad kuma soo dari karo shaygaasi waa inay markaa tahay ilaaba ilaa inuu jiro inaanu jirinna ayna dhici karin shaygaasi waa inay tahay ilaaba ilaa inaanu jirin inuu jiraana aynay suuragal ahayn iyo inuu labada mid walba suuragal tahay oo mumkin yahay jiritaanka waa aqbalayaa jiritaan la'aantana waa aqbalayaa khaaliqa wax abuurayaa noocuu noqonayaa mumtanicu lwujuud ma noqon karo midaan markaa inuu jiraaba aynay suuragal ahayn inuu khaaliq noqdaa ma dhici kartaa mid inuu jiraaba aynay suuragal ahayn wax ma jirsiin karaa jawaabtu waa maya marka mumtanicu lwujuud ma noqon karo mumkin lwujuudna khaaliqu ma noqon karo jiritaankiisu miduu suuragal yahay ma noqon karo oo ka uu jirsiinayo dee waa inuu wax dhaamaa waa inuu ka duwan yahay shay isaguba markaa jiritaankiisu asli aanu ahayn oo jiritaanku u soo darriyey wax ma jirsiin karo marka mumkin lwujuud hadduu yahay khaaliq ma noqon karo khaaliqu ilaaba ilaa ka wax jirsiinaya makhluuqaadka abuuraya waa inuu yahay waajib lwujuud jiritaankiisa midaan cid ka kasban waa inuu yahay mid weligiiba jiray waa inuu yahay midaan cadam u hormarin waa inuu yahay jiritaankiisu miduu lagama maarmaan yahay waa inuu yahay waa waajib lwujuud inuu jiri waayaa ma dhici karto inuu jiraa waa laasim awood buu leeyahay waxbuu jirsiin karaa makhluuqaadku dhammaantood waa mumkinat lwujuud inay jiraan baa suuragal ah inay jiri waayaanna suuragal bay ahayd oo daatadooda wax ku suganoo laazim ka dhigaaya ilaaba ilaa inay jiraan ma jiro khaaliq baa jirsiiyey haddaanu jirsiin lahayn may jireen waxay ku jiraan inuu ilaahay jirsiiyey dhammaantood waxa u hormaray cadam jiritaan la'aan jiritaan la'aanta u hormartay ee aynay mar jirin waxay caddaynaysaa inaynay waajibatulwujuud ahayn inay jiraan lagama maarmaan inay ahayn ila hadday waajibatulwujuud makhluuqaadku ahaan lahaayeen jiritaan la'aan may soo mareen waynay soo mareen taasi waxay caddaynaysaa inay jiraan lagama maarmaan inay ahayn makhluuqaadku wax inay jiraan aynay suuroobi karinna ma aha waayo way jiraan hadday mustaxiil ahaan lahayd inay jiraanna may jireen wayna jiraan idan ta kalena waa ka baaqdeen waajibatulwujuud ma aha bidaliil inay cadam soo mareen oo mar ayna jirin mumtanicat alwujuudna ma aho mid jiritaankeedu mustaxiil yahayna ma aha waayo jiritaankay jiraan baa u daliila inaynay mustaxiil ahayn inay jiraan falam yabqa ila an takuuna mumkinat alwujuud ma soo hadhin mooyaane inay noqoto makhluuqaadku mid jiritaankoodu suuragal yahay oo inay jiraan iyo inaan jirin mid walba aqbali kari lahayd laakiin waxay ku jireen waxay noqotay in khaaliq jirsiiyey ku jireen haddaanu jirsiin lahaynna may jirin haddaba shaygii mumkinulwujuudka ahaa oo jiritaankiisu suuragal ahaa ma noqon karaa dib ma ka noqon karaa waajib lwujuud ama shaygii makhluuqa ahaa ee isaga la abuuray wax ma abuuri karaa jawaabtu waa maya waayo waxay noqonaysaa jamcun bayna naqiidayn oo waa khaaliqo waa makhluuq wax dhici kara maaha waa qodob waxaynu kale ku sii daraynaa waxyaalaha makhluuqaadkee la abuuray waa badan yihiine allah abuuray xayawaanaad bay leeyihiin dhir bay leeyihiin yacni markaa waxyaalo badan bay leeyihiin hadday tahay cir hadday tahay dhul hadday tahay qorax hadday tahay dayax waayo xagga xayawaanaadka aan u kacno noolayaasha masalan
haddii dhalitaanka aabbihii iyo hooyadii ay dhaleen uu leeyahay way i abuureen, talow adhiga iyo geela iyo lo'da yaa abuuray? mid walba dee isu tag lab iyo dhadiga ay isu tageen inay ku abuurmeen waa la garanayaa, laakiin yaa jirsiyo abuuray? ma wuxuu odhanayaa mid walba labkiiyo dhadigii isu tegay baa abuuray? oo awrka markuu hasha abaahiyayo abuuris buu samaynayaa miyuu odhanayaa? xayawaanaadka kale oo dhanna saa u mar. haddii dhalistu abuuris ay tahay, sow markaa ma noqonayso inuu yidhahdo xayawaanaadkuna waxbay abuuraan. oo noolaha mid walba hadday shimbiro tahay, hadday xoolaha tahay, hadday dugaagga tahay, hadday bahalaha sare tahay, hadday bahalaha hoose tahay, hadday ugaadha tahay, yacni nooc kastoo nooliba waxbuu abuuraa inuu yidhahdo sow kama imanayso. butlaankeedu waa iska caddahay. nooc kasta kii ugu horreeyey yaa abuuray. masalan geela labadii ugu horreeyey yaa abuuray. adhiga nooc kastaba haddaad eegto, qaybta riyaha iyo qaybta idaha, labadii ugu horreeyey mid walba yaa abuuray. noolayaasha kalena saasoo kale u mar. lagama maarmaan waxa ah in khaaliq abuuray baa lagama maarmaana. dhiraha saasi la eg waxaa imanaysa in waxa weeye iyagana markaa la yidhaahdo yaa abuuray. labka iyo dhadigu iyagoo wakhtiyada qaarkood aan ku talagelin dee in ilmaba calool galo ba haddana ilmo ka abuurmaa. iminka xooluhu markay isi saaranayaan ma waxay ku tala galeen inay ilmo dhalaan? yaa odhanaya xooluhu markay isu tegayaan ama isi saaranayaan inuu neef dhasho ayay ku tala galeenoo doonaya yaa odhanaya? waxaynu garanaynaa waxyaalahaasi inaynay ahayn miday markaa rabeen, ee mid waliba uu doonaayo uun shahwadiisa inu guto. xataa dadka laftooda wakhtiyada qaar baynu ubad ku talagelin. iminka inanka iyo inanta iska sinaystay may rabin ubad inuu dhasho, manay jeclayn, manay ogayn ilmo inuu ka abuurmay. hadhow waxay ku naxayaan marka la yidhahdo inantii uur bay yeelatay oo uur baa ku soo baxay, waa ka naxayaan. see loo odhanaya iyagaa abuuray? ma waxaynay ogayn oo ku talagelin oo aynay doonaynin bay iyagu abuureen? abuuristu markaa uma baahna miyaa iraado iyo doonis? ku talagal uma baahna, ogaal uma baahna miyaa? waayahay. xataa labada isqaba wakhtiyada qaarkood baynay ku talagelin in ilmo calool galo. waxaa dhici karta hooyada in xaaladdan aan lala rabin in ilmo calool galo, waaba la qalay. waxay ku jirtaa wakhtigii markaa lalahaa ka ilaaliya ilmaha. haddana noocan maa waxa dhacday in arrinkii loo baxsaday. kumay tala gashanayn in ilmo calool galo, waana calool galay. markii ilmihii soo baxayna waa ka naxeen. kumabay tala gelinaysaa waxu abuureen. ta kale qof abuurista la abuurayo la jirsiinayaa oo qof nool la abuurayo la jirsiinayaa waa arrin markaa aad iyo aad u adag. ama xayawaan nool la jirsiiyaa waa arrin aad u adag. daaraha waaweyn ee dabaqyada ah ee naatixaatu saxaabka ah, madaxa la gelaya daruuraha, in la sameeyaa ka sahlan noolay yar in la abuuro duqsi kolay ku tahay. lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah. ilaahay wuxuu yidhi duqsi ma abuurayaan xataa hadday isugu tagaan. duqsi ma abuurayaan. waa arrin markaa waxa weeye caalamka cajsi geliyey oo la awoodi kari waayey. khubaradii iyo dadkii aqoonta lahaa ama aqoonta isbidayey si kastay isu kaashadeen way samayn kari waayeen oo abuuri kari waayeen. isu taggan waa jirtaa, waa sunna kawniya. khaaliqii makhluuqaadka abuuray baana u dhigay in sidaa ilmo ku abuurno. laakiin cidda abuuraysa waa allah. mid kastana biyaha lagama abuurin, oo aadamigii ugu horreeyey dee lagama abuurin mani. ciiddaa laga abuuray, ciidda ayaa laga abuuray. faman acda alawal, sida nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam markii cadhada loo sheegay, neef cadho qabaa inuu markaa geel dhex galo, dabeedna geeli wada cadhoobo,
nebigu markuu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay dee ka cadhoobay cadhada u keenaayo wuxuu uhi faman acda alawal ka hore yaa cadhaysiyo cadhada u keenay marka faman khalaqa alawal alinsaan alawal ka abuuray waa kee yaa ka dhigay lab iyo dhadig ilmihii markuu manida laga abuuro lab iyo dhadigaa ka dhigay hooyadii aabbihii waxaabay jeclaayeen marar badan inuu inan unu noqdo inan buu noqday ma waxay abuureen waxa inay garanayn waxaad garanaysaa arrinka noocaasi inay markaa tahay arrin aan sax ahayn oo butlaankiisu iska cad yahay inay tahay baad garanaysa waxyaalaha aad ugu wareegaan waxaa ka mida inay yidhaahdaan waxaa jira wax la yhaha tatawur oo dadku markii hore waxay ahaan jireen xayawaanaad kaley ahaan jireen oo ka soo tatawureen oo ka soo gudbeen oo xayawaanaadka iyo noolayaashu waxay ka yimaadeen nabaataad xayawaanaadkiina waxay ahaayeen xayawaanaadkii badda kadib markaa waxaway iyaguna waa soo tatawureen berribiyood bay noqdeen haddana waa tatawureen akhiiran markii ugu dambaysay wuxuu ku dambeeyey aadami dadku daayar bay ka yimaadeen bay yidhahdeen gaalada qaarkood oo qaar fara badanna u rixiyeen nimankan gaaloobay ee markaa allakoodka ah waxay aaminsan yihiin haalibkoodu iyo badankoodu tatawurkaasay aaminsan yihiin oo dadku ama daayaray ka yimaadeen ama iyagiyo daayaradu jinsi kala wada dhalay noocaasay leeyihin fikradda noocaasa waxaa la yimi nin la yidhaahdo darwin oo yuhuudi ahaa baa la yimi caqliga iyo sharciga mid walba waa ka hor imanaysa waa nadariyad u isagu dadka ku soo dhex tuuray falaasifadii hore qaar uga horreeyey waa jiraan wuxuu qoray kitaab la yahay aslu anwaac wax walba waa la tarjamay taasina dhibaatooyinka jiray ka mid oo carabi baa loo tarjamay iyo afaf kaleba wuxuu qoray 1859 buu qoray qarniyo badh iyo dheeraad baa laga joogaa wakhtigii u qoray ilaa wakhtigiina waa lagu muransay waa la isku hayaa waxaa la yaab leh nimankan gaalada ee mulxidada noqday haalibkoodu inay qaateen fikraddii noocaas ahayd qaateen ilaa qaarkood ay ku faanayaan inay daayar ahaan jireen mid waxa weeye abwaan ahaa oo ciraaqi ahaa oo isaguna waxa weeye markaa ilxaadkaa qaatay ayaa wuxuu yidhi maa naxnu ila aqrudun min nasli qirdin haaliki fakhrun lana irtiqaa'una fii sullami almadaariki wax kale ma nihin bay daayaraanu nahay buuhi waa faanayaa bal in daayara lagu faano ka warran maa naxnu ila aqrudun waa jamcu qirdin min nasli qirdin haaliki ya wax kale ma nihina daayaraanu nahay buuhi daayeer dhintay faraciis baanu nahay buuhi fakhrun lana irtiqaa'una ammaan bay noo tahay inaannu korayno fii sullami almadaariki wuxuu u qabay waxaasi wax cilmiyan sugnaaday inay tahay mar kale wuxuu yidhi asbata alcilmu biikhtishaafaatihi linnaasi ana alinsaana qirdun raaqi cilmigu waxyaalaha uu markaa faydaayo caddaynaayo wuxuu ku sugay oo dadka u sugay in daayeer yacni waxa weeye meel sare koray inaynu nahay waxyaalaha caynkaasee uu sheegayo wax markaa loo hayo daliil ma aha waa wax baatilnimadiisu iska caddahay waxay aad isugu mashquuliyeen gaaladu khaasatan qolada reer galbeedkii aad iyo aad waxay isugu taxallujiyeen inay helaan aahaar ay u cuskan karaan in bini aadamku daayar ka yimi mar waxay yidhaahdaan bini aadamka aadamiga iyo daayeerku asal bay ka wada yimaadeen marka qaarkood la sii weydiiyo leh asalkay ka wada yimaadeen waa maxay nooc kaloo daayeeraa bay sheegeen oo ay markaa tilmaameen waxyaaluhu u cuskaday warka noocaas ah waxa weeyaan
in xoogaa ekaansho muuqaalka sare ay isu soo yaro dhow yihiin aadamiga nooca noolaha ugu soo dhow xayawaanaadka arlada ku nool nooca aadamiga ugu soo muuqaal dhowi inuu daayirka yahay waxay kaloo yidhaahdeen markii la baadhay waxaa la arkay in waxa weeye wax iska waafaqayaan wax badan ay iska waafaqayaan xagga hoosena laakiin labada arrin ay sheegeen midnaba ma caddaynayso in dadku daayeer ka yimi ama iyagiyo daayeerku inay asal ka wada yimaadeen oo ka soo wada farcameen oo ka tatawureen mid caddaynaysa taasi maaha waayo muuqaalku in isshabbahaa daliil uma aha in waxa weeye markaa aabbo keliya wada dhalay mid daliil u noqonaya marnaba maaha xataa gaalada qaarkood maray radinayeen warka noocaas ah niman markaa waxa weeye qolyihii markaa waxa weeye gaalada reer galbeedkaa qaar ka mida ayaa waxay yidhaahdeen oo tashaabuh hadduu ka dhalanaayo markaa in meel laga wada yimi miyaa la odhanayaa daruuraha iyo markaa jallaatadu markaysaa waxaan waa isku meel bay ka yimaadeen tashaabuha ama muuqaalka sare inuu isu ekaadaa kama dhalanayso ilaaba ilaa in asal ka wada yimaadeen ama inuu aabba wada dhalay mid ka imanaysa maaha mid ka imanaysa ma aha waxaana jira waxyaalaha markaa noolayaasha dee inay waxyaala wadaagaan imanka waxa weye halkay leeyihiin daayeerka ayaa markaa waxa markii la baadhay yacni markaa ay wax wadaagayaan oo nisbo badan ay wadaageen dee xayawaanaad badan oo kaleba waa wadaageen bale waxay wadaageen oo la helay inay markaa iska waafaqayaan yacni xataa markaa khudrawaadka waxyaala ka mid ah oo DNA-ga marka la qaado waxyaalihii xayawaanaadka aad buu u kala saari waayey waa takaliftay qaarkood inay yidhaahdaan DNA-gu waa ka caajisay inuu furuuqda xayawaanka u dhaxeeya noolayaasha kala duwan ee arladan ku nool inuu kala caddeeyo ragga fikraddan aadka u radiyeyna waxaa ka mid ah xataa ninkii sameeyey DNA ninkii ikhtiraacay ragga radiyey buu ka mid yahay qaar kaloo aqoon-yahanada markaa reer galbeedka ka mida wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo altatawuru nadariyatun fii azma tatawurku waa aragti dhibaato ku sugan waayo wax daliila ma leh ragga markaa radinaya qaarkood malaaxiday ahaayeen mulxido waxay qirayaan adnaa daliil inaanay u hayn bay qirayaan saasay qirayaan walictiraaf sayid aladilla waxay yidhaahdeen markii la baadhay inta dheecaanadaas markaa iska waafaqayaan markaa aadamiga iyo jiirka ka badan intay markaa daayeerkii bini aadamku iska waafaqayaan marka mid waxa weeye taasi daliil u noqonaysa maaha ta kale arrinka ku saabsan waxa weeye way isa soo beddeleen gaabkii u dhaxeeyey meeyay markaa waxa caddaynayeen waxay sameeyeen qodaallo badan oo erlada qodayaan ilaa wakhtigii arrinkaas la soo saaray daarweyn soo saaray ilaa yowmina haada qodaalladii waa wadaan innaba wax u caddeeya gaabka labadaa u dhaxeeya wax u caddeeya ma hayaan gaab weyn baana u dhexeeya berdhawood bay waxay yidhahdeen etoobiya waxaanu ka hellay xalaqaadkii u dhaxeeyey aadamiga iyo daayeerka u dhaxeeyey midaan u malaynayno inay xalqad ka mida tahay hadda ma aragta waxay u bixiyeen ardi ka noocaasay soo saareen waxay heleen lafo wax yar ah inta kale iyagaa marka waxa weeye male ku dhammaystiray ee maha lafiyoo dhammaystiran inay heleen jidh ma jiro lafiyoo dhammaystiranna ma jiraan laakiin intaa xawdka iyo inta u dhow bay markaa heleen inta kalena khayaalkooday ku dhammaystireen markaasay yidhahdeen waxaanu hellay waxaan u malaynayna inay tahay xalqad ka mida xalaqaadkii u dhaxeeyey aadamiga iyo daayeerka oo wax markaa muuqaalkiisu u eg tahay markay cilmiyadoodii markaa ay ku qiyaaseen ku qadareen ay u eg tahay inuu markaa noole ku soconaya laba addin inuu ahaa ayay sheegeen laakiin waa arrin ku dhisan male ku dhisan
maaha wax sidiisa marka waxaan ay u heleen oo sugan maaha. haddiiba la qadaro laga soo qaado wax marka aadamiga shakligiisa ka yara duwan laakiin ku soo dhow haddii la helo ma waxay caddaynaysaa ilaaba ilaa martaba uu soo maray aadamigu inay tahay? maya, wax caddaynaya ma. waxaa loo baahan yahay wax markaa bayina ah loo baahan yahay. waxaa dhici kara jinsi kaloo sidiisa loo abuuray inuu yahay. waxaa kaloo dhici kara inuu markaa yahay aadamigii la dooriyey ee daayarada laga dhigay. oo aadamiga qaarkood ayaa laga dhigay daayaro sida qur'aankaba laynoogu sheegay. marka waxyaalaha ay sheegayaan wax daliila ma leh. khuraafaad badan baana ku jira nadariyada noocaasa. aad bayna markaa waxaa loo radiyey oo aqoon ahaan loogu radiyey. laakiin haddana maca daalik gaaladii aad bay ugu adag tahay. waxay doonayaan in arrinka noocaas ah yacni aan laga tegin. imanka maraykanka waxay yidhaahdaan dadka markaa waxa weeye yaqaana biologiga iyo dadka markaa waxa weeye yacni markaa cilmiga dhulka markaa yaqaana waxa qaalibkoodu ay aaminsan yihiin 90% ama ka badan inay aragtidaasi sax tahay bay u qabaan. laakiin warka noocaasi sax maaha. waa arrin marka waxa weeye lagu wado irhaab fikri oo dadka lagu khasbayo. waxaana la sheegay dadka qaarkooda aragtiyo ka duwan arrinkaa qaatay amaba markaa dhaliilay in shaqooyinkii laga saaray, in la fannashay, in jaamacaadkii ay wax ka dhigayeen laga eriyey. keliya inay khilaafeen aragtidii Darwin ayaa cidhiidhi lagu saarayaa oo shaqooyinkii looga jeejinayaa oo jaamacaadkii looga eryayaa oo markaa meelihii cilmi baadhista ay ka samaynayeen looga caydhinaya. marka waa arrin ku dhisan irhaab fikri dadka lagu cabsi gelinayo leeyahay car khilaafa saa la leeyahay. waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a Darwin markuu arrinkaa sheegayey wuxuu yidhi dadku waxa weeye markii hore 4 adin buu ku soconayey, marba markaa waa toosayey, dabeedna dabadii baa sii gaabanaysay, dabeedna markaasuu markaa haddana toosayey, dabadii siday u sii libdhaysay, markii dambe dabadii markaa libidhay isaguna saani buu isu taago oo addimadiisu ku socda. shaashkii badnaa iyo waxaasina waxa waa ka tageen. oo haddana maxaa ay ugu baaqi noqdeen haddii waxa weeye shaashku markaa ay saa uga tagay timaha madaxu muxuu u baaqi noqday? wuxuu idhi timaha madaxu waa meelaha waxyaalo badani la kulmaan oo waxyaalo badani ku dhacaan, markaa difaac bay madax u yihiin. difaac ayay madax u yihiin. waa aragtiyo ku dhisan marka waxa weeye iska malamale ku dhisan iyo khayaali, yacni saa ku dhisan weeye. dumarkii maxay timaha dheer iyagu u yeesheen? wuxuu leeyahay quruxdooda lagama maarmaan ay u tahay inay markaa yeeshaan timaha badan. waayo haddaba timaha markaa raggu ay leeyihiin garhka iyo shaarubaha iyo maxay markaa iyaguna ku yimaadeen? hadday tahay waxa weeye difaac bay u yihiin. halkan jabhad ee markaa laga sujuudo ayaa laga yaabaa wax badan inay la kulmaan. maxay tima u yeelan weydeedu? timaha hoosenaba difaac bay ahaayeen iyaguna. wuxuu leeyahay xubnaha laga shaqaysiiyo ayaa aad iyo aad markaa waxa weeye yacni u kora. xubnaha laga shaqaysiina aad uma koraan. saas aawadeed gerigu qoor dheer buu leeyahy. qoorta dheer dhirtii uu saloolanayay ee markaa uu islahaa mar walba markaa dhirtan daaq ayaa qoorti baxday buui. oo riyuhuba waa salooshaanay maxay qoortii u bixi weyday? ya maxaa riyaha laftooda ay qoortii u bixi weyday? marka wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo alisticmaal waalihmaal. xubinta aadka loo isticmaalaa way kortaa. xubinta la ihmaaliye ee markaa aan aad looga shaqaysiinna iyaduna ma sii korto oo mid sii socota maaha. wuxuu qabaa wax la yidhaha alintikhaabu alطabiici ama baqaa'u alaslax, yacni sifaadka wanaagsan baa baaqi noqonaya. sifaadkaa la kasbadayna waa la iska dhaxlayaa. saxna maaha, waa aragti baatila. intikhaab tabiiciyaa jiro oo sifada wanaagga badan baa marba baaqi noqonaysaa. ma intikhaabkaa wax dooranaya? ma
ma isaga wax baaqi yeelaya ma iraado iyo doonis buu leeyihi ma waxbuu jirsiinayaa wax saxa maaha ta kale sifaadka la kasbado ee ruux markaa uu kasbado miyaa laga dhaxlayaa ruuxa masalan nin baa wuxuu yahay xaddaad sifaadka wanaagsana uu yeeshay kasbadaa ubadkiisu ma ka dhaxlayaan oo iyaguna ma iska noqonayaan xaddaadnimadiina ku dhashaan ta kale xubnaha ruuxa laga gooyo ubadkiisii ma ka maqnaanaysaa aragtida noocaasa aqoon-yahanada gaalada qayb ka mida ayaa markaa waxa weeye buriyey waxayna sameeyeen eybay waxay ku sameeyeen ama daayeeraan filay inuu ahaa ayay waxay ku sameeyeen dabaday ka wada jareen hadhow bay eegeen tarantoodii mid waliba wuxuu dhalay mid daba leh dabadii inay ka go'an tahay ubadkii ugama hadhin in laga jaray dabadii ugama hadhin sifada kasabigae ruuxu kasbadaa mid ubadkiisii ku soo baxaysa ma aha oo uu ka dhaxlayo miduu ka dhaxlayo ma aha marka aragtida noocaasi waa aragti fashila weeye ta kale maxay u dhici weydey ila zamano badan baa markaa waxaa jiray dadkii oo isdaba jooga oo qaarkood dadnimadii weli aynay soo gaadhin oo ay ku soo siqayaan inay dad noqdaan xayawaanaadkiiyo si ay isu soo beddelaya maxaa loo arki waaye waxaa muuqata jinsi walba in sidiisa loo abuuray aadamiga qaطcan ilaahay wuxuu inoo sheegay in cid laga abuuray markii la baadhay canaasirta arladu ka kooban tahay dhammaantood waa laga helaya qofka waayo cid baa laga abuuray dhoobaa laga abuuray canaasirta ay ka kooban tahay dhoobaduna aadamiga waa ku sugan tahay taasina waxa weeye waa daliil kale oo sii caddaynay weeye iyaday kifaayo tahay daliilka sharcigu ta kale tatawurka ila waxaa ka dhigay xayawaanaadkao dhan inay saa u kala tatawurayaane kuwii kaleo isa soo beddelaya maxaa loo waayay nooc walba jinsi ahaan siisaa loo abuuray miduu waxa weeye kani markaa noqonayo noocan kale ma aha ama kalluunku isu beddelayo berribiyood ma aha ama berribiyoodkii markaa shimbire isu beddelayo duulaya ma aha ama xayawaanaad kale uu isu beddelaya ma aha mid waliba markaa waxay sidiisuu ku baaqiya daayaradii maxay markaa daayarnimadii ugu sugan yihiin xayawaanaad kale maxay sidoodii ugu sugan yihiin hadday sakaaradii tahay hadday bakaylihii tahay hadday berribiyoodkii tahay iyo xaaskiiyo kuwa la midka ah kalluunkii hadduu yahay sidiisu marka waxa isaguna sidiisii yahay xataa marka waxa weeye xayawaanaadka yaryar iyo kuwa waaweyn nooc walba waxaad arkaysaa iyagoo sidoodii ah oo sidoodii isu dhalaya mid iska beddelay oo noocaana ka tegey noocii kalena weli aan gaadhin maxaa loo waayay malaayiinka noole ee arlada ku sugan waxaad arkaysaa mid waliba inuu markaa yahay jinsi sidiisa u gaara inuu yahay yacani saasaad arkaysaa ee mid ay waxa weeye tatawurayaan oo la arkayo oo ay sidaa u kala dandambeeyaan iyagoo tabaqaad ah ma jirto mid aadamigii ay ku soo siqayaan oo daayarnimadii ka yimaadeen oo meel dhexe ay marayaan lama hayo marka aragtida noocaas waa aragti baatil ah xataa mulxidada qaarkood baa waxay yidhaahdeen arrinka noocaasi waa arrin mustaxiil aan dhici karin wax jirana maaha aad waxa arrinkaa idinku soo naqlinayaa ka eegi kartaan 40 khata fi tatawur kitaabka la yidhahdo 40 khata oo ku sugan tatawurka rasaa'il kale waa laga qoray oo iyaguna mawduuca ku saabsan makhluuqaadkani waa makhluuqaad la abuuray caqliga iyo sharciga iyo fitrada mid walbana ku tusinaysa in la abuuray hal arrin aan u soo noqdo oo ku saabsan khabaru saadiq arrinka ku saabsan horta waxaan ka yara hormarinayaa masalada ku saabsan ruuxda oo aynu sheegnay ayaa dadka qaar waxay leeyihiin ruuxdu wax jira maaha nimankaa gaaloobay ee diintii ka baxay ayaa qaarkood waxay leeyihiin ruuxi ma jirto waxaana daliil looga dhigay axaadiista waxaa ku soo aroortay 120 habeen markuu ruuxu jiro baa ruuxda lagu afuufaa ilmuhuna wuxuu nool yahay yadaan wakhtigaa la gaadhin waayo 6 wiig markuu jiro ilmihii waa dhaqdhaqaaqayaa wadnihiisuna waa shaqaynaya
marka marba haddii wakhtigii la sheegay ka hor ilmahani shaqaynayo wadnihiisu oo uu dhaqdhaqaaqayo waxay caddaynaysaa inuu hore u noolaa. ta kale manidu waa nooshahay, ogxanta gabadhuna waa nooshahay. marka mar hadday nooshahay ilmuhu isagoo nool buu calool galay, markuu galayba waxa weeye waa nool yahay, saasuu u wadaa. taa jawaabteedu waxay tahay ruuxdu waa arrin markaa falaasifadii horena ay qirsanayd, iminkana waxa weeye aqoon-yahanada gaalada qayb ka mida ay qirsan tahay. hadda filaan badankoodu, laakiin aqoon-yahanada gaalada qayb ka mida ayaa qirsan. diintana waa laynoogu sheegay. diinta in laynoogu sheega horta ku filan annaga agtayada yacni waxa weeye khabarka saadiqa ah ee ku soo arooray ee qur'aanka iyo xadiiskuba sheegeen, muslimiintuna ku ijmaaceen baa xujo ah. laakiin markaannu sheegayno aanu leenahay falaasifo hore ayaa qirtay, ama aanu markaa sheegayno leenahay aqoon-yahanada gaalada qayb ka mida ayaa qirtay, waa arrin marka waxa weeye xujo ahaan aanu ku xujaynayno cidda inkaraysa, laakiin arrin aan wax uga baahannay maaha. waxaa la garanayaa ruuxda qofku waa wuxuu ku nool yahaye marna uu ku noolaanayo la gelinaayo, markuu dhintana laga saarayo. xataa waxay sheegeen gaalada qaarkood miisaanka ruuxday marka waxa weye dooneen inay markaa miisaamaan. tajribe uu sameeyey nin maraykana wuxuu sameeyey, magaciisa hadda ma xasuusto, internetka waad ka heli kartaa. waxa uu sameeyey tijaabooyin ku saabsan qofka marka naftu ku jirto inta miisaankiisu yahay iyo markay sidaa uga dhacdo intuu miisaankiisu noqonayo. markaasaa tajribadiisii wuxuu ku helay isla marka naftu ka baxdo 21 garaam inuu miisaankiisi ka lumayo oo qofkii fududaanayo. marka haddii la odhan lahaa neefta jidhkiisa ku jirta ama sambadiisa ku jirta iyo wax la mida, yacni xataa intaas waxa weeye markaa wuxuu u dhigay inuu markaa qayb gooyo. arrinka ku saabsan waxa weeye wakhtigaasaa nafta lagu afuufaa baa xadiisku yidhi. marka wakhtigii ka hor haddii dhaqdhaqaaq lagu arkay, ruuxda asalkeedaba waxba kama jiraan, dee mandiq ahaan mid saxa maaha, xujadii kuma filla intaas. waxa ugu badane kaaga iman kari lahayd waxay tahay haddii markaa dhaqdhaqaaqaasi nolol caddaynayo waaban la hubine in la yidhaahdo yacni ka hor baa lagu afuufaa. laakiin in la yidhaahdo haddii wakhtigaasi aanu sugnaan yada lafteeduba ma jirto, dee mid saxa noqon mayso. waa midda labaadee axaadiista ku soo aroortay ruuxda in lagu afuufo qofka, xadiiska sariix kuma aha 120 habeen. xadiisku wuxuu sheegayaa layujmacu khalquhu fii baطni ummihi 40 yowman uma yakunu calaqatan mila dalik uma yakunu mudqatan mila dalik. mila dalik bay waxay u fahmeen jamaahiirta culammadu in laga tilmaamayo misliyada in looga jeedo 40 wax la mida oo 40 kale 40 kale. laakiin xadiisku ma odhan 42 oo kale, xadiisku ma tasriixina mila dalik buu yidhi. waana tay yidhahdeen culamada qaarkood mila dalik waxay u noqonaysaa xagga jamciga ayay u noqonaysaa. waayo xadiiska laftiisa waxaa soo kala wariyey saxaabo kala duwan. ka sidaa sheegaya waa xadiiska cabdullahi bn mascuud bukhaari iyo muslim ku sugan, mila dalik tilmaamaya. waxaa jira xadiis kaleoo muslim saxiixa ku soo wariyey oo isla xadiiskan ah oo tilmaamaya haddii 42 habeen ay ka soo wareegaan malag waa u yimaadaa oo dabeedna markaasuu waxa weeye yidhaahdaa ilaahayow ma labba mise waa dhadig. markaasaa tuu ilaahay ku yidhaahdo uu ka yeelaa wahaluma jara ila aakhirih. riwaayaadka qaarkoodoo muslim saxiixa ku soo wariya 42 habeen bay sheegaysaa, waana fii saxiixi muslim. riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan 45, qaar shaki bay sheegayaan 42 ama 45. waa arrinka keensaday culammada qaarkood inay yidhaahdaan wakhtiga ruuxda lagu afuufaa waa 42 kaas bidaliil xadiiska
xudayfat ibnu asiid ee saxiixu muslimka ku sugan ayna yidhaahdeen mila dalik waxaa laga tilmaamayaa xagga jamciga ayuu kala mid yahay. weliba xadiiska cabdullahi bn mascuudna waxaa jirta riwaayo kale oo sheegaysa uma yakunu fii dalika calaqatan mila dalik oo fii dalika ziyaadinaysa oo iyadana muslim saxiixa kusoo wariyey. waa xadiiskaa kale riwaaye u leeyihi. marka arrinka ku saabsan saddexda afartanaad waa sida jamaahiirta culammadu ka fahantay. fahamka culammaduna macsuum maaha, inkastoo culamada qaarkood ay soo naqliyeen itifaaq ay soo rareen, haddana culamo kale ayaa waxay mareen wejigan kaley mareen oo ay yidhaahdeen wakhtiga lagu afuufaya wakhtigaas. xagga markaa ku saabsan sida jumhuurku ku tageen, haddii la yidhaahdo sidaasaa saxda ah, waxa ugu badan ee uu tilmaamay waxay tahay ama ciddaasi ay tilmaamayaan ilmuhu waa dhaqdhaqaaqa, wakhtigaa ka hor buu dhaqdhaqaaqa. laba nololood baa jirta. dhaqaaq kasta ma caddeeyo noloshii xayawaaniga ahayd ma caddeeyo. imanka waxaa kale jira waxa la yahay xayaatu nabaat iyo xayaatu alxayawaan, noolaha noloshiisa iyo dhirta noloshooda. dhirtu waa nool yihiin, waa shay naami ah, waa shay koraya, waa shay taqdiye qaadanayo oo bimacnaa waxa weeye waxbuu cabbayaa, waa korayaa, waa shay naami ah. waana laynagu sheegay qur'aanka in la noolaynayo oo nolosha waa laynagu tilmaamay. oo fa axyaa bihi alarda bacda mawtiha, arlada ayuu nooleeyey geerideedii dabadeed. waxaa loogu noolaynaya waxa weeye waa biyaha. marka loogu nooleeyo dhir baa ka soo baxaysa. wallahu anzala min alsamaa'i maa'an faaxyaa bihi alarda bacda mawtiha. marka shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi noloshu waa laba nololood, waa xayaatu alxayawaan iyo xayaatu annabaat. fa xayaatu alxayawaani khaasatuha alxisu walxarakatu aliraadiya. nolosha xayawaanka waxay la gaarka tahay waa dareenka iyo markaa dhaqaaqa, doonitaanka loo nisbeeyey. nolosha nabaadkuna waa annumuw waliqtidaa, yani shaygu waa kan koraya oo ziyaadaya. bale markaa dhiruhu waa dhaqdhaqaaqaan qaarkood. imanka waa aragteen ama waa maqasheen gabal daye geedka la yidhaahdo, kolba geesta qorraxdu ka xigto ayaa caleemihiisu u jeestaan. waxaad arkaysaa caleemihiisii oo soo koksan oo wada eegaya geesta qorraxdu ka xigto. waa nooc xaraka ah. haddana markaa noloshii xayawaaniga ahayd ma noolaa oo ruuxii kuma jirto, waa korayaan. geed kastoo nooli intaanu dhiman. haddama aragtaa timaha aadamigu waa nool yihiin marka laga eegaayo xagga numuwigaoo dhirta marka waxa weeye siday dee u baxdo oo kala timuhu u baxayaan. haddana xisi kuma sugno oo dareenka gudihiisa kuma sugnaa. oo timaha haddii sidaas markaa la jarayo oo la goynayo dee damaq kama dareemaysa. marka nolosha timuhu waxay shabbahaan tii nabaadkay shabbahaan iyo dhirta ayay shabbahayaan. ta xayawaanaatulmanawiya ku saabsan waxay markaa u eg tahay noocan yani nabaatiga oo kale u eg tahay, noloshaas oo kale u eg tahay. siday marka ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen, xayawaanaatulmanawiya way dhex dabaalanayaan, dhaqdhaqaaqaasay samaynayaan, laakiin xisigii iyo dareenkii ashyaadaasi markaa kuma sugna, iyo waxa weeye iraadadii markaa mida ku sugantay maaha. urjiifku laba nololood buu maraa. nololi waa nolosha koritaanka. marka ruuxda lagu afuufana noloshii xayawaaniga ahayd bay noolaanaysa. marka in urjiifkii uu waxa weeye dhaqdhaqaaqo ilaa wadnihiisu markaa uu dhaqdhaqaaqo, dee mid waxa weeye xarakadii xayawaanigu ku noolaanaysay miday caddaynaysa maaha. way aqbali kartaa. xadiiskana dee ixtimaal baa ku jiro, riwaayaadkii baa kala duwan. riwaayada kale markaa 42 waxba ku dari maysaba, wa mila dalik markaa lama socotaba. axad asaxiixayn baanu ku sugan yihi. marka khulaasadu waxay tahay addacwa acamu min addaliil. sheegashada la sheeganaya waa ka guda ballaadhan tahay waxa la cuskanaya la deliishanaya. waxa la cuskanaya la deliishanaya waxa weeye waa dhaqdhaqaaqa.
dhaqdhaqaaqa waa lagu furay laakiin dhaqdhaqaaq kasta ma caddeeyo noloshii xayawaaniga ahayd mid caddaynaya ma aha koritaankuna markaa mid caddaynaya ma aha dhirtuma waa kortaa dhirtuma waa dhaqdhaqaaqdaa marka waxa weeye labada markaa saasaa farqi ugu dhexeeya ta kale aadamigii ugu horreeye la abuuray waa inagii sheegnay dhoobo in laga abuuray waxa dhoobada laga helana in laga helaayo bini aadamka faida sawaytuhu wanafaqtu fiihi min ruuxii faqacuu lahu saajidiin abuurkiisa markaan dhammaystiro ruuxdaydana aan ku afuufo waxaa u dhacdaan xaalaa u sujuudaysaan manin lagama abuurin dhoobaa laga abuuray haddana waxa weye iyadoo dhoobo laga abuuray dee intii aan markaa ruuxda lagu afuufinaya markii ruuxda lagu afuufay waa kala duwan yihin waxa lagu karaameeyeyna ruuxda markii lagu afuufay baa la amray in markaa loo sujuudo oo malaa'igtu ay u sujuudaan malaa'igtu inay u sujuudaan markaasaa la amray marka arrinka ku saabsan waxa weeye khabarka saadiqa ah haddaynu u soo noqonno warka dhabta ah waa dariiq wax lagu ogaado weeye cidda warka sheegtay hadday tahay cid markaa lagu kalsoon yahay waxay noqonaysaa mid waxa weeye wax lagu ogaado cilmi lagu helo iminka ka soo qaad inanka gaalkee mulxidka ah eele aabbaha iyo hooyadayba ay abuuray muxuu ku caddaynaya horta aabbihii hooyadii inay dhaleen aabbihii hooyadii inay dhaleen muxuu ku caddaynayaa ila isagu ma ogeyn ya wuxuu ku caddaynaya waa maxay soo ma dhici karto inay cidlo intay ka heleen sida carruuraha qaarkood loo tuuro inay soo qaateen sooma suuragal ahaa dabeedna iska korsadeen ay aabbe iyo hooyana isugu magacaabeen muxuu ku rumaystay inay dhaleen ila ma ogeyn waxaa dhici karta inuu yidhaahdo DNA baa markaysa waxaa layga qaadi karaa iyagana laga qaadi karaa waxaa lagu ogaan karaa in waxa weeye DNAgu ay iswaafaqsan yihiin jawaabtu waxay tahay waa dhici karta in layga qaado DNA oo ay iswaafaqaan waa shay kale laakiin ila al'aan mar haddaanad sheegin marka waxa weeye in lagaa qaado ee iswaafaqeen maxaad hadda ku rumaysantahay inay ku dhaleen ise waad ka shakisan tahay dee haddaad ka shakisantahay dadka u sheeg intaan DNAga la baadhin waxaad ku rumaysatay maxay tahay soo khabar maaha kaba soo qaad waxaaba odhan kara aniga waa lay baadha aabbaha in aabbihii hooyadii dhaleen maxaad ku rumaysatay ila waxaad leedahay inay hebel hebel hooyadaana in aabbaheedii hooyadeeda dhaleen maxaad ku rumaysatay soo khabar maaha lagu sheegay khabarkaasaad ku rumaysatay oo sidiqday soo maaha ya yacni khabarkii inaan la cuskan karin dee meesha kama imanaysa khabarkii in la cuskanayaa meesha ka imanaysa marka khabaru saadiq yani waxyaalo badan baa ku dhisan ta kale khabarrada nebiyadu waa khabarro xaqa oo la hubo weeye sababtu waxay tahay nebiyadii waxyaalo nubuwadooda caddaynayaa jira mawduucaas kollay mar kale loo baahan yahay inuu ka sii hadallo oo mawduuca ku saabsan qur'aanka iyo mawduuca ku saabsan nebiga calayhi asalaatu wassalaam mar kale in sha allahu tacaala ayaa loo baahan yahay haddaynu soo koobnana isku mar laga dhigo yacni nebi inuu nebi yahay iyo inaanu ahayn wax qarsoomi kara maaha waayo sideedaba nebi waxa sheegta laba ruux asdaqu saadiqiin ah oo mid run sheega ugu run badan iyo ruux akdabu lkaadibiin ah oo cid been sheegta ugu been badan cid run sheegta kii ugu runta badnaa shakhsigii ugu runta badnaa iyo cid been sheegta kii ugu beenta badnaana ma isku qaldami karaan ruuxa markaa gaadhay inuu ilaahay ku been abuurto oo iyadoo ilaahay nebi aanu ka dhigin uu yidhahdo nebi baan ahay waa ruux beenta keenay boqol haddama aragtaa marka ruuxa caynkaasoo kale mid qarsoomi kara maaha maca daalik waa ruux akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu yacni aad iyo aad u xun yahay hadday tahay fawaaxishta iyo xumaanta siduu u miisanayo iyo akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada iyo khisiisnimada ya ruuxa ilaahay ku been abuuranayaa waa ruux marka waxa weeye akhasunaas ah oo dadka ka ugu xun ah wax wanaagoo lagu qaato aan lahayn waayo ruuxa heer kaa gaadhay ma noqon karo ruux qarsoomi kara marka nebiga
dhabta ah akhlaaqdiisu waa hufan tahay dhaqankiisu waa hufan yahay runta iyo ammaanada iyo sidqigaa lagu yaqaanaa sidaasaanu ahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood nin markaa waxa weeye reer miya wuxuu arki jiray wejigiiso markaasuu odhan jiray ashhadu ana hada alwajha laysa biwajhi kadaab waxaan qirayaa wejigaasi weji beenaale inaanu ahayn ya mucjizaad baa la siiyey mucjizaad ka caddaynayay nebinimadiisa kitaab baa lagu soo dejiyey kitaabkii baa lagu cajsi geliyey markaa waxaweye dadkao dhan oo la yidhi kulligiin isu tagoo bal haddaanu xagga ilaahay ka iman mid la mida la kaalaya waxaa la garanayaa cadaawadda iyo nacaybka ay u qabeen nebiga calayhi salaatu wasalaam gaaladii inuu aad iyo aad u darnaa ya miyay u turhayeen maxay u keeni waayeen kitaabka si ay ugu caddeeyaan inuu been sheegayo waana la sii sheegay inaynan la imanayn qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilihi walow kana bacduhum libacdin dahiira ya kulligii isu wada tagaa la insiyo jinni oo dhan oo intay isu wada tagtaan bal kitaabkaa mid la mida la kaalaya hadday isu wada tagaan lama iman karaan baa la yidhi yaday qayb tahay oo weli markaa waxa weeye wax mustaqbaliya ay tahay ayaa la sii sheegay inayn la iman doonin ilaa yowmina haadaana lama iman miyay u turhayeen markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maya marna umay turhayen teellana umay dhiganayn taasaa waxay tahay abyanu daliil iyadoo mucjizaad kaleba nebi moxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam daliil cad oo nebinimadiisa caddaynaysay tahay waa daliil bayin ah oo waadixa xataa dadka qaarkood iyagoo aan nebi moxamed arag baa sifada looga sheegay bes bay ku rumaysanayeen imanka boqorkii heraqle la odhan jiray meliku ruum markuu nebigu warqadda u diray aslim taslam wuxuu uhi ninka nebinimada sheeganaya dhulka uu ka soo baxay cid ka timi oo joogtaa ma jirtaa markaasaa la yidhi haa niman carabaa jooga oo ka yimi beledkaas maka ka yimi abu sufyaan iyo niman markaa waxa weeye kaloo la socdoo tijaare u yimi oo markaa iyagu gaala ah aadna nebiga u necab calayhi salaatu wasalaam dagaallo badanna la galay abu sufyaanna uu ahaa ninkii gaalada quraysheed hoggaaminayay dagaalladeeda wixii ka dambeeyey beder wixii beder ka dambeeyey isagaa quraysh u oday ahaa dagaalladoodana hoggaaminayay iigu yeedha buuri abu sufyaan iyo jamcii la socday ee tijaarada u tegey ayaa loo yeedhay boqorkii baa loo geliyey xadiisku wuxuu ku suganyay bukhaariga wuxuu uhi ninkan nebinimada sheeganaya kiineeba ugu nasab dhow abu sufyaan wuxuu yidhi aniga intaa isu jirtaan buu idhi odayga afraad baan isugu tagnaa buu ihi cabdimanaaf waa odayga afraad baan isugu tagnaa wuxu uhi waxbaan kaa weydiinayaaye iiga jawaab qoladii kalena wuxuu ku yidhi wax aan sax ahayn hadduu ii sheego oo qalad ah yacni ku beeniya oo sida saxdaa ii sheega su'aalo badan buu weydiiyey o dhowr iyo 10 su'aalooda su'aalihii markuu weydiiyey ninkii boqorka heraqla wuxuu xaqiiqsaday inuu nebi yahay buu xaqiiqsaday wuxu uhi warkaa aad iiga sheegtay hadday dhab tahay ya waa nebi buu yidhi halkaan markaa hadda addimadayda ku hayana wuu qabsan doonaa intaa bes buu ku xaqiiqsaday waraysigaa uu waraystay ee looga warramay ayuu ku xaqiiqsaday oo ruuxu wax garanayo oo dee kutubihii hore markiisa akhristay oo dee kiristaan buu ahaa marka waxa weye waxbuu garanayay qofka laakiin aan waxba garanayn isagu wax kasta marka waxa weeye dee waa yani isagu waxba markaa ma aqbalayo waxaa la yidhaha caduwun caaqilun khayru min sadiiqin jaahil cadow caqli leh baa ka fiican yani ruux saaxiibkaayoo jaahila ruux saaxiibkaayoo jaahila cadow caaqila ayaa ka fiican baa la yidhi waxbuu qirayaa marka waxa weeye nebi moxamed sala allahu alay slam nebinimadiisu waa caddahay xujada caynkaasaa jirta mucjizaad kalaa jira ilaa yowmina haada kitaabkii mid la mida lalama iman taasi waa bayino cad weeyaan marka mawduuca waxaan ku khatimayaa masaladii ninkii uu sameeyey mukhaaladada oo uu yidhi marka waxa weeye waxbaan amba abuuray aynu qisada soo naqlinay oo dirxiyadii uu sheegtay inuu abuuray
tan noocaasi waa waxay yidhaahdaan tawalludu daati wax la yidhaahdo weeye oo waxay qaarkood ka cabbiraan tawallud daati shay laftiisa iska dhashay aragti jiri jirtay tahay tan noocaasi tawallud daati wax la yahay inuu jiro laakiin waagii dambe waxay noqotay aragti baatilay noqotay oo aan jirin aqoon-yahanada gaalada qaarkood arrinkaas waxay yidhaahdeen waxba kama jiraan bastir ninkii la odhan jiray waxa uu tilmaamay marka leeyahay shaygan ama waxa weeye hilib ha noqdo ama khudrad ha noqdo ama wax la mid ah yacni waxa weeye qurmaya ee hadda markaa waxa weeye dirxiyada yeelanaya maaha laftiisa wax ka dhashay buuri waa aragti qaldan waxa weeye waa jeermis marka hore markaa waxa weeye shaygan dushiisa saaraa ama hawada markaa saarnaa weeye dabeedna markaa wuu koray markii horena waxay ahayd waxaan ishu qabanayn markii dambena wuxuu noqday qaar waaweyn buu noqdayoo wuu korayoo yacni wax ishu qabanaysu noqday haddii markaa la sameeyo in waxaan markaa laga dilo jeermiska noocaasa laga dilo hadhow markaa waxa weeye meel markaa haddii lagu xafido aan jeermiskii lahayn wixii kama dhalanayo waana sida lagu dhisay oo loo sameeyey hadda markaa waxyaalaha mucallabaadka ama caanahan markaa waxa weeye moorgaraysan iyo waxyaalaha la midka ah dee wax markaa jeermisoo ku dhashaa ma jiro sababtuna waxay tahay waxaa laga sameeyey tacqiim baa laga sameeyey oo waxaa la dilay markaa jeermiskii waxyaalahaasaa la dilay marka wax laftooda ka dhalanaya ma aho shay jamaadi u noqonayo xayawaan iyo noole noqonaye waa shay marka horeba yacni markaa ishu aynay qabanayn oo sidiisa u jiray oo ama hawada markaa waxaweye raacayey ama marka waxa weeye shaygan laftiisa ku dul sugnaa ayuu ahaa dabeedna markaa markii dambe koroyo saa u weynaaday marka hadda mawduucii kollay kelimaadkaas baan ku soo goynayaa iyadoo aan markaa kollay waxaan hadda sheegay ay kollay kooban tahay bal hadda mar dambe ayay insha allahu tacaala noqon doontaa xalqadda dambe marka insha allahu tacaala dib baa laga soo cilaamin doonaa xalqadda dambe marka aynu insha allahu tacaala geli doonno caawana halkaasuu inoogu joogayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online